Assalaamu calaykum. Cuntooyinka hooyada uurka leh waa mowduuca muuqaalka. Ku soo dhawow channel-ka Cilmi Baashe. Hooyada uurka leh ayaa la doonayaa inay cunto cuntooyin gaar ah iskana ilaaliso cuntooyin kale. Halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa cuntooyin ay lagama maarmaan tahay inaad cunto marka aad leedahay uurka. Cunooyinka huruurka ama huruurka ka samaysan. Cunooyinka sida tooska ah looga sameeyay huruurka kala duwan waxaa ku jira maadooyinka folic acid, iron iyo borotiinno muhiim u ah hooyada uurka leh. Kalluunka waxaa ku jira omega 3 oo muhiim u ah kobaca maskaxda iyo indhaha uurjiifka. Waxaa kaloo ku jira kalluunka faytamiino badan oo kala duwan. Hilibka dhaylada oo aan baruurta lahayn waxaa ka buuxa borotiinno, wuxuuna ka qayb qaataa korriinka murqaha iyo lafaha uurjiifka. Caanaha ciirta ama kadhka loo yaqaan. Caanaha ciirta ee laga baxshay saliidda hab kastaba ha looga baxshee waxaa ku jira calcium aad u badan, wuxuuna faa'iido u yahay ilkaha iyo lafaha hooyada iyo uurjiifka. Digirta noocyada kala duwan waxaa ku jira in ka badan 20 nafaqo oo kulli faa'iido kala duwan u leh hooyada uurka leh. Ukunta waxaa ku jira borotiinno, faytamiino iyo macdan kala duwan oo muhiim u ah samaynta unugyada cusub ee uurjiifka, waana u muhiim hooyada uurka leh. Bataati macaanka waxaa ku jira maadada folate oo muhiim u ah sixidda sequenceska hidde-sidaha DNA-da, waxayna ka hortagtaa cilladaha carruurtu ku dhashaan ee ay ka soo qaadaan uurka hooyada. Cagaarka kala duwan sida basal baarta, kaabajka, koostada, qajaarka iyo bagalka intaba waxaa ku jira faytamiino kala duwan oo faa'iido u leh hooyada uurka leh. Furuutyada, babayga, afakaadhada iyo karootada waxaa ku jira nafaqo muhiim u ah korriinka uurjiifka iyo caafimaadka hooyada uurka leh. Miraha adag sida lowska, yicibka iyo sisinta waxaa ku jira xayrta omega 3 oo waxtarka ay u leedahay uurjiifka iyo hooyada aan horay u soo xusnay. Aad ayaad u mahadsantahay.